nin u dhashay dalka Ingiriiska oo lagu magacaabo Joel Bennett oo safarkiisii ugu horreeyay ku tagay dalka Koonfurta Kuuriya ayaa ogaaday in uu galay qaladaad weyn kadib markii uu u mahad celiyay milkiilaha maqaayad oo cunto macaan u ka cunay. Mulkiilaha maqaayadda oo heeday haweeney 60 sano jir ah iyo Bennett oo xilligaasi 23 sano jir ah ayaa markii uu ka cunay maqaayadda haweeneydani raashiid aad u macaan u mahad celiyay. Waxa uu isku haystay in uu wax fiican sameeyay balse taa arrintu way ka duwan tahay. Kelmadda mahadsanid ee afka Ingiriisiga ku noqonaysa thank you waxay yeelanaysaa macnayaal kala duwan afka Kuuriyada Koonfureed marka la joogo waxayna ka turjumaysaa sifo nacayb ama caay ah. balse sida uu qabo dhaqanka Koonfurta Kuuriya laga isticmaalo Bennett waxaa la filayay in uu maadaama mulkiilaha maqaayadda uu daahaan uu ka yaryahay in uu adeegsado luqad wanaagsan oo ixtiraam leh balse ma aanay dhicin. Isaguse waxa uu isku haystay in uu sameeyay wixii ugu fiicnaa abid, taasi oo ah in haweeneyda ahaan aad uga weyn lana eg ayayadiisa uu u mahad celiyay. Afka Kuuriyada Koonfureed looga hadlo waxa uu leeyahay nidaam adag oo loo adeegsado heerarka kala duwan ee bulshada, waxaana lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay luqadaha adduunka ugu adag maadaama uu u baahan yahay qofka marka uu ku hadlayo afkaasi in uu adeegsado heerarka kala duwan ee bulshada. Waxa muhiim ah marka aad Koonfurta Kuuriya joogto qofka marka aad la hadlayso in aad ka hor weydiiso da'diisa, kadib ayayna kuu suuro geli kartaa in waxyaabaha kale aad u baahan tahay qofkaasi aad kala hadasho. waxyaabaha ugu horreeya ee qofka aad Kuuriyada Koonfureed kula kulanto uu ku weydiinayo ayaa waxa ka mid ah da'daada, si uu u helo markaasi hadalka munaasibka kuga ah ee lagugula hadli lahaa. in aad qofka si gambasho la'aan ah aad u tiraahdo da'daada ama sanadka aad dhalatay ii sheeg waa mid bulshooyinka qaar ku adag, suuragalna ay tahay in lagula yaabo qofka adigoo aadan garanayn marka ugu horreysa aad la kulanto in aad si toos ah da'diisa aad u weydiiso. balse tani waxay tilmaam u tahay bulshooyinka ku nool Koonfurta Kuuriya si ay u kala dambeeyaan. waxa muhiim ah in qofka Kuuriyada Koonfureed ku sugan ugu horreyn ka hor inta aadan la hadlin aad weydiiso da'diisa. in aad ogaato kala duwanaanshaha da'da dadka marka aad joogto Koonfurta Kuuriya waxay kuu sahlaysaa in qofka aad la macaamilaysid ama ay wax idin dhex marayaan in aad kula hadasho hadalka ku munaasibka ah. dadka degan Koonfurta Kuuriya ayaa waxa ay qofka da'diisa ay ku qiimeeyaan hadalka lagula hadlayo, iyadoo qofku markuu yahay caruur, dhalinyaro, da' dhexe iyo sidoo kaleetaba qof da' ah ay u kala soocan tahay hadallada loogu kala hadlayo ama hadallada loo adeegsanayo marka dadyowgaasi lala hadlayo. su'aalaha asaasiga ah ee muhiimka tahay in aad adeegsato marka aad Koonfurta Kuuriya ku sugan tahay ayay qayb ka tahay weydiinta da'da qofka uu jiro si aad u kala garato wixii qofkaasi la gudboon ee aad ku dhihi lahayd. wadamada reer galbeedka qaarkood qofka marka ugu horreysa aad kulantaan in aad weydiiso da'deeda waxa suuragal ah inuu qofkaasi aad u kuula yaabo. laakiin si loo fahmo sababta da'da qofka loo weydiinayo marka aad ku sugan tahay Koonfurta Kuuriya ayaa ah in laga fogaado isfaham waa soo kala dhaxgala bulshada dhexdeeda, waana aragti qadiimi ah taasi oo ku qotonta caqiidada, farqiga u dhaxeeya waayeelka, dhalinyarada iyo nidaamka bulsheed. si loo ilaaliyo ayay caqiidadani soo bilaabatay 500 oo sano ka hor, waxa ayna bilaabatay xilligii boqortooyadii Joseon sanadii 1392 ilaa sanadii 1910 ayayna caqiidadani si rasmi ah boqortooyooyinkii degayay Koonfurta Kuuriya ay ugu dhaqmayeen. waxa ayna caqiidadani ay qayb ka tahay hadda dhaqamada asaasiga ah ee dadka reer Kuuriya. arrimahaas oo dhan waxa lagu soo koobi karaa laba eray oo ah in bulshada dhexdeeda dadka muxtaramka ah, waalidiinta sida aabaha, hooyada, boqorka, boqoradda, dadka xilalka hayo iyo wixii la mid ah si loola dhaqmo. waxa ay ku qotontaa caqiidadani ee reer Koonfurta Kuuriya ay isticmaalaan in bulshooyinkaasi ay ku kala socnaadaan. waana sababta ugu weyn ee da'da la isku weydiinayo. waxa ayna dadka reer Koonfurta Kuuriya ay ugu fadhisaa micno aad u weyn in da'da qofka la ogaado ka hor inta aanan lala hadlin. Koonfurta Kuuriya waana dhaqamada ugu cajiibsan ee laga yaqaano dhaqankan da'da isweydiinta. weliba qofka marka ugu horreysa aad kulantaan ama marka ugu horreysa aad doonayso qofkan in aad la hadasho ama ay wax idin dhex maraan. heerarka afafka Kuuriyada uu leeyahay. nidaamka luqadda Kuuriya ee ixtiraamka loo isticmaalo waxa uu leeyahay ilaa iyo in ka badan 7 darajo oo hadalka iyo qoraalka loo adeegsado. balse dhanka hadalka marka la eegayo waxa lagu soo kaabin karaa oo kaliya laba mid caadi ah iyo mid aanan caadi ahayn, taasi oo jumladaha iyo erayada aad adeegsanayso aad ku kala saarayso marka aad joogto
koonfurta kuuriya. xaqiiqda marka la eego luqadda kuuriyada koonfureed isticmaalkeeda sida uu u adag yahay waxaa xataa mararka qaar ku qaldama dadka asal ahaan u dhasha afkaasi ee iyagu leh. waxaad u baahan tahay in aad fiiro gaar ah u yeelato aadna barato si deganna aad u fahamto luqadda iyo ereyada la adeegsanayo marka aad ku sugan tahay koonfurta kuuriyada dhexdeeda. waxaana inta badan in aad da'da dadka ogaato ay door muhiim ah ay ka qaadanaysaa go'aanka ama waxa aad odhanayso qofka xilligaasi aad la macaamilayso. isku soo wada duuboo arrimahan aan soo sheegno oo dhan waxa ay noqdeen kuwo jahwareerkooda leh oo ay ku adkaato dadka ajaanibta ah ee inta badan booqda dalka koonfurta kuuriya. fiidiyow 2016 lagu baahiyey YouTube-ka kaasi oo ay daawadeen in ka badan 1.2 milyan oo qof ayaa Bennett waxa uu ku bartay cashar ku saabsan habka sharaabka marka la cabayo luqaddaasi loo adeegsado. xilliyada qaar ee aad goobaha maqaayadaha ama goobaha dadweynuhu ay isugu yimaadaan aad ku sugan tahay oo aad dalbanayso adeegyo, waxaa muhiim ah in aad koonfurta kuuriya markii aad joogto aad adeegsato agab walba ama wax walba aad dalbanayso luqaddiisa ama ereyada ku habboon ee u gaarka ah. way kala duwan tahay marka aad koonfurta kuuriya joogto adiga oo dalbanaya cabitaan ama sharaab iyo sidoo kale marka aad dalbanayso cuntooyinka. waxaa loo baahan yahay inaad adeegsato luqadda dalkaasi ee u gaarka ah cabitaanka ama sharaabka iyo sidoo kale luqadda dalkaasi ee u gaarka ah si ay dadkaasi isugu fahmaan xilliyada la dalbanayo cunnada. waxaa taa beddelkeeda muhiim ah marka aad koonfurta kuuriyada joogto in aad mar weliba aad wax dalbanayso aad qofka aad wax ka dalbanayso aad ixtiraamto. haddaba maxay yihiin xilliyada loo baahan yahay ixtiraamka marka aad ku sugan tahay koonfurta kuuriya? marka aad lacag bixinaysid ama aad qaadanaysid oo aad ku sugan tahay koonfurta kuuriya waxaa loo baahan yahay in aad labadaada gacmood is saartid, taasi oo ka dhigan in qofka aad lacagta ka qaadanayso ama aad lacagtaba aad siinaysid aad ixtiraamtay. haddii aadan adeegsan in aad labadaada gacmood is saarto oo aad qofka aad uga mahad celiso waxa ay noqon doontaa mid lagugu ganaaxo ama mid bulshada dalkaasi ay ku taghooraan. marka aad ku jirto xaalad ku shaki gelinayso ee aad koonfurta kuuriya ku sugan tahay waa muhiim in aad markaasi aad ogaato qofka da'diisa si aysan ereyo aanan ku habboonayn qofkaasi aysan kaaga soo bixin. sidoo kale waxaa loo baahan yahay marka aad dadka aad ixtiraamayso in aad raaciso ereyo ay ka mid yihiin yo iyo nidaa oo ka mid ah ereyada ay isticmaalaan dadka reer koonfurta kuuriya. waxaana ereyadani markii aad qofka aad u raaciso oo aad wax ka dalbato ama wax uu ku siinayo ay muujinayaan in aad si wanaagsan ama sidii ugu fiicneed aad u ixtiraamtay qofkaasi. xilliyada ixtiraamka lagu guda jiro waxaa muhiim ah sidoo kale in aad ogaatid qofka aad la hadlayso magaciisa. marka aad ku sugan tahay koonfurta kuuriya waa muhiim magaca qofka in aad ogaatid si lamida sida aad u ogaanaysid da'diisa ka hor inta aanan cilaaqaad kaleeto aysan idin dhex marin adiga iyo qofkan. waana dhaqamada ugu cajiibsan ee ka jira koonfurta kuuriya.